afkaygu ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaantaada gacalooy u fududaaye. السلام عليكم soo dhawaada saaxiibada cusub like subscribe iyo wax walba ku dabdala caawa waan xanaaqsanahay xataa magacaygu waa iloobay magacaygu waa bidhaamiye been masheega baarqa banaanka degay halka daawanaysaan oo marqaati TV caawa aad iyo aad baan u xanaaqsanahay waxaan soo daawaday muuqaal yar oo haddii adiga aad daawatid baad dib u xanaaqi doonto waraabayaashii waxaa la yidhi adduunku waxa uu nasiib xun waraabe markuu weel kuu noqdo waa waraabe hadduu weel kuu noqdo waa midda ugu nasiibka xun waaye waxaa magaalada muqdisho ka dhacday heshiis lagu qaadanaya xaquuqda uu leeyahay walaalkay Aweys Cali Baafo waxaana sameeyey 3 youtuber oo magaalada muqdisho ka shaqeysta oo kaliya u shaqeeya mataqaanaa dhuuntooda oo aysan jirinin damiir celinayso aysan jirinin tusaale waxay indhaha dadka Soomaaliyeed ay mar qoro ku baraarugeen dhibaatadii uu sameynayay Xasan Toob waxaa dhacday kadib youtuber kale oo uu ka mid yahay sida Dugaal Media yar ka shaqeeyo ani magaciisa ma garanayo iyo yar Farxad sida idahayaan iyo Fartuun Balbalaarka durba waxay bilaabeen inay buubuuniyaan dhibaatadii ka jirtay ama dhibaatadii haysatay yarkii miskiinka ah oo lagu magacaabay Aweys Cali Baafo maxay sameeyeen mid walba iyaga kamida mooto bajaaj ayuu inta ijaartay ayuu wuxuu ku raadinayay 24 saac sida uu ku heli lahaa Aweys Cali Baafo muhiimadiisa ma garanaysaa adiga isweydii ma garanaysa ma ahan inuu caawi lahaa ma ahan inay caawi lahaayeen ma ahan inay dibajidin u sameey lahaayeen ma ahan inay ka hortagi lahaayeen inuu kooladii uu dib ugu laabto Aweys Cali Baafo may intaba ma aysan sameyn waxa ugu horeeyay labada wiil ee labada channel ee Farxad Side iyo Durdur Media Farxad Side iyo Dugaal Media mid walba wuu keenay wuxuu ka wareystay oo kaliya uu yiri afkaaga furo oo Xasan Toob caay macnaha challenge bisaheed oo lagu la jiro Xasan Toob laakiin ma aysan jirin qof ka fikirtay miskiinkan sidee aan ku badbaadinaa ma aysan jirinin waxa uu igu nasiibka xun Dugaal Media yarka haysta waxa inta wareystay oo xilli habeen wareysigii gaarsiiyay ayuu ninkii uu og yahay inuu Xasan Toob iska soo dagaalan oo meel jiifto inuu san helin og yahay ayuu habeen madow gurigiisa dana ka buriyay maxaa dantu kala uu ka gaaray macnihiisu waxa inuu wareysto oo fuse oo ka helo macnihiisu intaas ahayn maxaa noqdo marka waa waraabe wehel ha ku noqdo waa nasiib daro iyo ayaan daro qabsatay walaalkay Aweys Cali Baafo waxa soo hartay Fartuun Balbalaarka adduunka Soomaalida waxa ku maadaan dab ninkii ku gubtaa dambaskiisa ka cabsada leeyahay Fartuun Balbalaarka waad garan kartaa duruuf halkay tahay oo meesha ka soo bilowday waa dareemi kartaa meesha hadda aad joogteen waa dareemi kartaa ilaahay ku kala kiciyo qof uma taqaana kartilaatay ma kaaga xuni kaas laakiin waxaad xaq u lahayd Aweys Cali Baafo inaad caawiso waxaad xaq u lahayd Aweys Cali Baafo waxa ka maqan inaad uma taqaana aad ii sheeg aad la raadiso maadan xaq u lahayn inaad ma taqaana soo bandhigto tiraada muxuu sameeyay muxuu yeelay muxuu kana muxuu san sameeyay midna dib hadda ugu laabano horta qofka bini'aadanka waxa xadida aqoonta iyo dabiirnimada iyo inta ayaa xadido laakiin intaba haddaysan jirinin waxba marna ma dhacayaan Aweys Cali Baafo mashruuc oo noqday mashruuciisii maalintii waa laga faa'iideystay kadib maxaa dhacay adiga aad ogsooneen waxaa dhacday nin kamid ah odayaasha ugu waaweyn ee baraha bulshada ee YouTube-ka ee lagu yaqaan inuu wax la karbaasho aysan lagu aqoon inuu wax dadbaro Daar Cali Sow qof kasta taqaano Daar Cali Sow ayaa fadlo soo saaray oo Facebook-giisa soo dhigay oo ku yiri haddaadnaan heshiinin ma taqaana haddaadnaan heshiinin dhibaato cawaqximo la kulmaysin iyagu marka maxay u heshiinayaan maxaa ku heshiin loo yiri ma amahan wax kale ku heshiin waxa lagu yiri khayraadka ama dakhliga ka soo gali doona Aweys Cali Baafo ku heshiiya oo hayska shifinina waaye ما أنا كويسية ما الله دين اسمه يصدقالين اسمه يسافرين بل دبوا في رصد متنين عايم مكودرتو نين عايم كمودرتو معناه على سكويس تاعي أويس علي بافو دقالي كسو قلي waxa cunay Xasan Toob dhaqaali ka soo gal anaka cunno waa wax la isku dagaalay
sidoo kale waxaan barnaamijka qeybaha dambe igala qaybgeli doono mid ka mid ah saxafiyiinta magaalada muqdisho oo waraysiyada iyo mataqaanaa markuu fiiriyey ee uga dhex baxday waxyaaba fara badan ayaan ka weydiin doonaa habdhaqankooda laakiin mid aan u dul istaagno janaladooda dib u fiiriya waxaad ka fiirisaan hal eray ama mataqaanaa waxaad ka fiirisaan hal barnaamij oo waxtar u leh bulshadeena Soomaaliyeed bal fiiri youtuberada kale iyo dadka kale hal abuurada leh youtube-kooda bal fiiri laakiin waxaan idin sheegayaa inta ay nugu jiraan waraabayaashaas oo kale inta ay nugu jiraan dadka mataqaanaa aaminsan maxaa cuna aaminsan inta ay jiraan qofna horumar ma gaarayso hadda ninkii saaxiibka Awas Ali Baafo wuu hadlay wuxuu sheegay in warbixino badan iyo ballanqaad badan oo xasatoob lah oo ka ballanqaaday inuu uga baxay sax waa dhacday waa aragnay laakiin durdur maxaa la dugaal miidi iyo farxad sidii labada nin oo joogtay farto balbalaarka maxaa qaban kartiin maxaad u qaban kartiin maxaa sii kartiin waxba laakiin waxaad markaas ka fiirsan shilinka Soomaaliya laakiin ogaada in la xisaabtamayo ogaada in marqaati TV wuxuu mar walba tusaa toosh weyn ku wataa in adiga camal waa adiga aan kula hadlayo inaan toosh kugu ifiyo si ay dadku ku arkaan horta mid la isagama faa'iideysto ninka raggaana weligiin mid ha uga faa'iideysanina ama qof kastoo bini'aadan midna ha uga faa'iideysanina qofka walaalkaaga markuu maanta liito waad xaq u leedahay inaad garab siisid qofka walaalkaaga maanta markay ka tinsantahay waad xaq u leedahay inaad u shito aniga maanta ma jecli ishiina dhaqaale inaan xero ma jecli laakiin ana waxba igama samaynin waxba igama samaynin weligaa maanta waxba ma dhihinin laakiin idama aqaano laakiin waxaan arkay ficiladiina qaldan waxaan arkay wax aad sheegaysiin iyo wax ka hooseeya dib u raaciya adiga waxaan kula hadlaa dugaal media adiga waxaan kula hadlaa farxasidi waad soo qaaday waxaa ku soo qaaday mooto bajaaj sax waad keensatay waxaba ka duubatay ilaahan kugu dhaariyay ma siisay badar oo cuna xataa ma siisay maya ilaahan kugu dhaariyay xaqiisa ma la raadisay maya ilaahan kugu dhaariyay meel oo seexdo ma siisay maya intaas hadaad u qaban karin walaalkeeyow maxaad mataqaanaa aad u soo bandhigtay Soomaalidu waxay dhahaan midada ninka waranka ninka kugu muday iyo kan kugu ligliga aad u daran xasatoob dantiisuba ka lahaaba uu fahmo uu ka soo tagay laakiin adiga maxaad go'ashada u xasuusisay adiga maxaa inta u soo dhigtay tiro afka furo oo dhibkaaga ka hadal aw tiri maxaad u tiri hadaad waxba u qaban karinin waa ayaan daro iyo nasiib daro kale oo mataqaana soo wajahday walaalkii Awas Ali Baafo laakiin waxaan rajaynayaa inay u kici doonaan walaalo Soomaaliyeed oo damiir leh waxaan allana ka rajaynayaa inay imaan doonto waqti la xisaabtami doono oo leedin doo kanna waa qabateen bal dib isugu laabta xasatoob xiis way cadaaba xasatoob waa wariye Soomaaliyeed mataqaana mihnadii saxaafadda heerku lahay ka gaari waay laakiin inta u soo laabtay laakiin saxaafaddu bilaaban tahay oo soo bartay laakiin hebelow farxad sida iyo hebelow mataqaana durdur media maxaa la sheegay dugaal media adeero mataqaana saxaafaddu saan maahan adeero saxaafaddu marnaba ma ku ogolaanayso qof walaalkaaga oo liitay inaad mataqaana aad god ku ridid bal dib ugu laabta qof kasta ha fiiriso dugaal media mid ka dhahayaan iyo kan farxad sida ay dhahan dib ugu laabta qof islaameed inay ku dhagan yihiin maahane maalin kamida lama aysan ibaanin hal abuur gadmada ma la imaanin hebel baasaan yiri hebel akan yiri hebel asaan yiri Munsir Maxamed Cabdi wuxuu ka mid yahay saxafiyiinta Soomaaliyeed aad ugu xaleer arrimaha waraysiyada wax la mid ah markaad aragtay waraysiyada kala duwan Awas Ali Baafo maxaa kaaga isbaxay Awas Ali Baafo in lagu danaysanay in loo heshiiyay in la dhagaro in laga damacsanaa in dhaqaale lagu helo saddexdaas arrin ay iga baxay waraysiyadii ugu dambeeyay la yeeshay waxaana markii dambe Awas uu soo dhacay meel cidla ah oo hadda taagan yahay dadka waraysta ee YouTuberska mid walba wuxuu ka fikirayay inuu janaalkiisa geliyo asoo sheegay laakiin inuu guriga ku soo dhaweeyay sax marka haduu kan guriga ku soo dhaweeyay guri kale ma lagu arkeen kan haduu guriga ku soo dhaweeyay guri kale lagu ma arkeen markay wada waraystaan waxay dhahaan way soo hay dadka iska dhici bal su'aalihiisa la weydiinay ka waran iyo su'aalo maxay ahaayeen su'aalaha la weydiinay waxay ahaayeen su'aalo
afka loo gelina lagu qasbayo oo maqoonin ay ka muuqato ma ahan nidaamka oo sida ayaga rabaan u jawaabo ma ahan nidaam waraysi loo qaado oo qofku waxa leeyahay saan ma ahan miya hebel saan ku dhimiya macnaheedu saan dheh ma fahmin mid walba warku uu asaga rabo ayuu gelinay tan kale oo kasii darana waxay tahay waa heshiinay soo dajiyaan hadda nimankii maxay ku heshiiyeen ma wayse u heshiiyeen oo inay dhinac uga soo jeestaan way saay jireen hore way isku caay jireen maysan heshiis jirin laakiin heshiiska cusub muxuu yahay bal dadku u faafayay marka dadka waxaan u sheegaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa gaar ahaan dadka YouTube-ka ku waashay war dad waaweyn oo aqli la haatihiin aqoona leeyihiin waa idin aaminsanahay waa inaad fahantaa marka wax fikradaha yaryar ee daciifka ee dad qaar ka imaan kara ina iska celin kartaan waxaan soconayn ma fahantaa صح waa isdagaalna waa heshiinaysa filmaantii idinka malana ku ciyaara waa heshiino waxay soo bandhigeen maanta ka bacdi inaan isweerarin inaan kan qodobada ku waxa kamid ah hore waa isku soo waran wixii hore xalaal cali waxa laga ma sheegayo laakiin hadda kadib toosh ay ugu ifin ma kugu ifinayo macna yaa waa qofka tooshka lagu ifinayo waa waxyaabaha isweydiinta laga waa marka hadda aan dardaaranka u jeedina waxay tahay nimankan wareerisada ku caan baxay inaysan dadka maskaxda ka waalin inaysan noo jilin filin aan dhamaad lahayn oo musalsal ah dadka daawadayaashan waxaan u sheegaynaa inay fahmaan dadkan waxay damacsan yihiin nimankan waxa waaye koox isku bahaysatay burcadbada maqli jirtay burcadda YouTube-ka waa dad isku bahaystay inay dad dhibaateeyaan dadka waliba nuulka ma adiga ku ifiirinaya ama adiga daawanaya hal su'aalan ku weydiina dib ugu laabo saddexda barnaamij ama saddexda channel ma jirtaa barnaamij hal abuur leh oo maanta wax ka faa'iiday xikmad leh ama maanta asli karto midaaladaas ka helo waa in qof la caayay waa in qof mataqaana la bahdilay mid kasta wuxuu ku socon baa la garan karnaa Soomaa marka xaq laga ma aamusayo ninkaana waa kana barqa banaankiisa degay xaq in laga hadlana waa balanteena ugu dambeyn dhibane walaalkay awas cali baafo waxa taa qof nolosha iyo qaababkeeda wax yar ka duwan ma ka bedeli karay kana soo bedelay jidad baar ma soo maray maxad ku tilmaamleed awas cali baafo waxaan kula talin lahaa walaalkay inaad maaragtay noloshiisa asaga abuurtay noqotid aad iyo aad u maasan yahay saaxiibkay Munasar Maxamed Cabdi taliyo tusaalooyin fara badan hadda uga baahantiin waxaad kala xiriiri kartaan janaalkiisa xog waraysi TV halkaas oo ku soo aad ku arki doontiin bandhigiisa cajiibka waxaan la hadlayaa bulshada Soomaaliyeed waxaad leeyahay aniga marnaba kama qarsoonaa doono marnaba ma kama dhuumana doono inaan runta ka sheego qof kasta xastoob iyo dhammaan saaxiibta waa xaqeerta si fiican ay u aqaana laakiin marnaba geed in kama geli doono inaan runta ka dhunto wax walbo aatiin nolosha waa sheegaya sababtoo magaciiga waa baarqa banaanka degay bidhaamiye beermasheega baarqa banaanka degay xog waraysin ama marqaati TV wuxuu ka turjumayaa astaanta iyo soo bandhigida waxyaabo badan oo qarsan marka sidaan wax iska bedel hadii kale karbaashku weyn ku soconaa afkaygu amaanta u fududaayay afkayguna amaanta